الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهي إلى أمرنا رشدا. waxay noo soo socday tafsiirkeena qur-aanka kariimka ah waxaana maanta soo gaarnay suuratu masad ayaan soo gaaray oo loo yaqaano dadka qaar ama dugsida qaar tabad looga aqoon jiray. suuraddan iyada waa suurad maki aayaadkay ka kooban tahayna waa 5 aayadood. suuraddu zabanazuul bay leedahay. nabigu sala allahu calayhi wasalam maalmaha ka mid ah sida ibn cabaas uu warinayo ayuu buurtii safo fuulay. markuu fuulay ayay soo kulmeen markaasuu nabigu u sheegay yidhi sabaxakum wa masaakum war niman yahow waa laydinku waabariistay waa laydinku gaabaystay iyahu runsidaydinidaan aqoonima been baan idiin sheegi jiray maya fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabi shadiid cadaab baan idinka digayaa. dacwada aniga kitaabka alla qaata. nabiga adeerkii abulahab oo suuraddan inteeda badan ka sheekeynayso isagiiyo islaamtiisa oo dhibaato badan nebi maxamed u geysan jiray ayaa wuxuu yidhi alihaadaa jamactanaa tabban laka saa'ir alyowm wallayaa ku habaaga balaada kuu dhacda maalinta dhammaan ama inta soo hadhay maalinte ma waxaasaad noogu yeedhay. nabigu markuu dacwada wada intuu yimaad ule waraaraha adeeruha khayr haddaan ku ogaay aan raacay aaya iskaga carara. ninkaasi si toosa suuraddu uga hadlaysaa waana makiyo dhidibada waxay u aasaysaa risaaladii ay sugaysaa iyo dacwadii iyo tawxiidkii iyo umuurahaasoo idil. laakiin waa suurad caam oo nin alla ninka nebi iyo diinta dhibe ka hor yimaada ayay taabanaysaa. bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa suuraddan iyada ah. الرحمن الله نحريسته بين نحريسته الرحيم الله نحريسته خاصة مؤمنين تا نحريسته انت الإيمان ده الله تعالى وحيري صلى الله ورمي لعين كاس مجرم كافر إلهي يا النبي بكك عليه تبت يدا أبي لهب الله وحيري تبت وحا هلاك سنتي يدا أبي لهب وحا هلاك سنتي labadiisii gacmood oo waxaa laga wadaa isagoo dhan ayaa halaagsamay balaada ku dhacday. watabba way halaagsameen watabba ha halaagsameen duco caleyh laga dhigo ay khasirat way khasaareen oo xubnihii sidaa khasaaray khaabad wa khasirat yadaa abilahab oo loo jeeda dhammaantii naftiisaa loo jeedaa dhammaan carabta ayaa tacbiiruljuz'i bay taqaanaa oo dhammaan loo jeedo. ha halaagsama dhibaatana ha ku dhacdo sidaas odhanaya. tabad waxaa halaagsamay yadaa abilahab labadiisii gacmood walmuraadu dhammaantiibaa loo jeedaa watabba ha halaagsama balaada ha ku habsato dhibaatana ha ku dhacdo. alla tacaala wuxuu yidhi maa aqnaa maynan ka tarin canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisu waxba kama tarin cadaab kama difaacin waxba uma qaban iyo wamaa kasaba awlaadiisu ku faanayeyna waxba maynan u qaban. awlaadu ku faanayey waxba uma qaban. sayaslaa naaran naar buu geli naartaasoo daata lahabin olol u saaxiib ah. naar inuu gelayo alla u qoray oo alla maxaayan u yaboohay inuu naar gelayo. qof kastoo alla uu naar u jasmiyey waa ahlu naar. qof kastoo alla janno inuu gelayo u jasmiyey waa ahlu janno. qof uusan allana u jasminin macnaha rasuulkuna uusan u ballan qaadin maadaama uu waxyi ku hadlayo adiga qofkeenan caadiga ma dhihi karo ama waa ahlu naar ama waa ahlu janno allaahumma inuu gaalnimo iyo shirki ku dhintay mooyaane. idan alla wuxuu odhanayaa sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naartaasoo daata lahabin olol u saaxiiba. wa mura'atuhu islaantiisuna way gelaysaa jamiil la dhihi jiray bintu xarbin ibnu umaya waa ukhta abi sufyaan baa la dhahaa xamaalata alxadab xaaba gurka badnida waxay yidhaahdaan
mararka qaarkood laga soo sheegaa inay dariiqa nabigu maro qoryo ay ku uruuri jirtay iyo qodxo oo waxyaalo badiga nabiga shicir iyo alaab ay ku aayi jirtay oo dhibaato badan ay la iman jirtay waxaa iyaduna sidoo kale mararka qaarkood la sheegaa inay qodaxdaa kadib markay xambaarto oo dariiqa ku daariso ay haddana dhihi jirtay waxaan haddii ninkaan isaga uu meeshaa soo maro hadda waxa weeye qoortaaban kaga istaagay والنميمة وهي كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس بل أيضا سؤال من يريد تتوارك والمية قانا مرقا وحيوانات تتي يوارنها أمورتها هرونيسا أيوه واحد سمعين تتي نبي رأيبه تتي الله ومراته إسلام تسنة ويجري حمالة الحدب حابة بركة بالنيد وجلسة في جيدها غورتها في عربها جيد وغورته حبل الحرق باقوصها ومن نسد وليف كسب يسان يا حسكول أيها كسب يسانه وها سلسلة من حديد يجرها سمعوها براء باقورت الله سوري لقاتل فربنا على بلان بالله بلان قالي الله تعالى وحورنا يا وحي إليه قار صاحك يا وحي إليه إيضا حالة وضع أي حالة هو يا غورت يسان سورتي فودي سوبي إذا حرقي وكرنا قرار بعود على أساسي كوان أكسنتي ما دام الرسول قال الله يديب ترتي ويديب لي هيدا البرنامج كيدو وصلها إذن وهو يا نار تاسا يدر الله يبوهي من كيدر الله يبوهي قف كستو إله لبا يا كتاب كيسا دليا يا أدن بيا وهو يدلي يا دواتو كما ربعوه إذن waxaa loo baahanya inaynu ogaano suuradda iyada halkaas inooga dhammaatay waxaa inoogu xigtaa suuraddan kale ee loo yaqaano suuratu nasri suuraddaasna iyadana calaamaad waxay leedahay cajiib ah ayay suuraddaasuna leedahayo warkii la weydiiyey saxaabada qayb ka mida war suuraddanu ma garanaysaan suuraddan iyada ee suuratu nasri la yidhaahdo maxaa u malaynaysaan inay macnaheedu yaa garanaya waa la weydiiyey dhalinyaro fara badan baa la weydiiyey waa kii cabdullaahi ibni cumar ayaa markii dambe saxaabi jaliil ah oo yar oo weyneyn ayaa wuxuu yidhi waxaa arrintan ay tusinaysaa nebiga adashiisi inay dhowaatay adashii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhow ayay suuraddanu ay ka hadlaysaa oo macnaheedu marka adashu dhowaatana waxaa laga wadaa horta awalan intaynan taa gaadhin suurad madani aweeyaanoo 3 aayadood ka kooban suuratu nasri macnaha ay dadinaysaana waxa weeye oo macnaha laga wado oo macnaheedu uu yahay geerida nebiga inay matusinayso waqtiga nebiga matalan salawaatullahi wasalaam intiis la soo dejiyo suurad kaamil oo dhammaystiran oo ka dambaysa ma jirtaa la dhaxaa waxaa laga hele laga soo reebo idan بسم الله ملأ إلهي بان سورة كبود ملأ الله كبلا الرحمن الله نحريست بين نحريستا الرحيم الله نحريست كاسك المؤمنين تكو قاريارا الله تعالى وحيد إذا جاء نصر الله قرقارك على مركو ينادو والفتح مكا فرطان جسو مكا لفرطو مكا سمسكي سيدينات أيها لفرطي الله أيها إله أدوي وقالوا إعادة الله لفرطي oo 10 kun oo ciidan uu nabigu galiyay sallallahu alayhi wasallam marka uu ka magnaa muddo dheer oo ka magnaa nabigu sallallahu alayhi oo 8 sano uu ka magnaa hijro iyo Madiina uu aatanaa oo meesha uu san joogin Allah ta'ala ida jaa nasrullah nasru ilaahi markuu yimaado iyo al-fath furashada Makkah ay timaado Makkah furataan ورأيت الناس تدوينها يدخلون إليه قرية في دين الله دين تعالى أفواجا جماعة وقرية دمركي دنبه جماعة قبائل دنبه إمارة إسلامية أو إمارية مركي لو يهدون اللي قرية نوانكي نوار قراشات أي أفواجا يقعقع سو قرية قبائل من قرية إذن إذا جاء نصر الله والفتح نصر إلهي مركي الأشياء لو قرقار النبي الصحابة والفتح فرشاء مكان فصبح عند إياها تصبيح سوء بحمد ربك ربي عن هذه سألة كلها
wastakfiruu dembi dhaaf weydiiso inahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla toobada aqbala ayuu ahaaday fasabbix markaad arrintaa aragto tasbiixso bixamdi rabbika adoo mutalabis ku ammaanta alle wastakfiruu dembi dhaaf alla weydiiso inahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla toobada aqbala markay soo degtay suuraddaa kadib wuxuu dhihi jiray markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo subxaanaka allaahuma rabbana allahuma kfir lii subxaanaka allaahuma wabixamdika rabbana allahuma kfir lii subxaanaka allaahuma wabixamdika rabbana allahuma kfir lii suuraddan halkaasay weyna inoogu dhammaatay waxaana sidoo kale inoogu hegi karta suuradda loo yaqaano suurat alkaafiruun suuradaas waa suurad maki aayaadkay ka kooban tahayna waa 6 aayadood waxayna tusinayaan sida nusuulkeeda iyaduna uu noqonayaa gaaladii waa waxay yidhahdeen warniga haddii aana diiday marna ilaahaga aan caawino marna aan caawino isku darsanno alla ayaa diidana waxaa la odhanayaa ilaahay keliya oon caawiyo warkooda dhag sadaqa u siinayna kala taga alla tacaala wuxuu yidhi isagoo arrintan ka hadlaya bacda bismi illaahi araxmaani raxiimada ilaahay baan ku bilaabayaa arraxmaani allaha naxariista guud naxariista arraxiim allaha naxariista khaaska ah mu'miniinta ku gaar yeelay waxaa tahay nabiyullaahi maxamed yaa ayuha alkaafiruun war nimanyahow gaalow haada nimanka reer gaal yaa ayuha alkaafiruun magacoodaa lagu war kaafiriinay inta ilaahay ka kufrisay loo asagan ilaahay diidayay laa aabudu ma caabudayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan hadda xaaladan la joogo ma caabudayo asnaamtiin iyo geedihiinna walaa antum idinkuna ma tihiin caabuduuna kuwa caabudaya maa aabudu waxaan caabudaya xaaladan aan taagnahay walaa ana aniguna ma caabudu mid caabudaya maa cabadtum waxaad caabudaysaan filmustaqbalka soo socda walaa antum idinkuna ma tihiin caabuduuna kuwa caabudaya maa aabudu waxaan caabudaya bilistiqbaali filmustaqbal mustaqbalka soo socda ma ihi maa aabudu maa tacbuduun ma ihi lakum waxaa idiin sugnaaday diiniku waxaad diin ka dhiganaysaan oo shirkiga iyo gaalnimada ah weli diinii baa ii sugnaa islaamnimada ilaahay igu maarta manaystay ayaa igu maartay anigana ii sugan idan waxa weeye halkaas darteed baynu isugu imanayniyo ilaahay qur-aankiisa meelo badan buu ku yidhi walaa tudici ilkaafiriina waalmunaafiqiin munaafiqiinta iyo gaalada ha adeecin waduu low tudinu fayudhinuun waddada gaalada iyo waddada muslimiintu inay kala cad yihiin baa la rabaa idan suuraddanu suurad caadiya ma aha nabigaa lagu odnaa qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha alkaafiruun war gaaloy nimanka reer gaal waxaad tidhaahdaa laa aabudu ma caabudaya maa tacbuduuna fi lxaal walaa antum idinkuna ma tacaabuduuna ku caabudaya maa aabud walaa ana aniga ina caabudun ku caabudaya maa cabadtu waa caabudaystaan fi lmustaqbal iyo maarta fuujarka walaa antum idinkuna ma tacaabuduuna maa aabud ku caabudaya ma ihi oo aan caabudaya ma ihi idan lakum waxaa idiin sugnaaday diintiina shirkiga oo ilaahay waxa laga caabudaa diin baa lagu magacaabay laakiin ina diina cinda allahi alislaam laakiin diin ninka alla ku caabuda laga aqbalaya ma ay ahaa nin kasta oo nabi maxamed arkay amaba maxay ahaya maqlay oo rumaynin oo saa ku dhintay eerunaar weeyaan waana gaal buu noqonayaa nusuustaasna xadiista caddaysay idan anigana weli diintayda islaamka ii sugnaatay intaasaynu ku soo gaabinaynaa wallahu subxaana wa tacaala wa axkam wa sala ala alkarim